السلام الله عليكم الصحابة يسوسون نغشة ونعكسن هالك آد فيديو عن كداون سوا دكتور حاشي نتورك ما أنت فيديو عن آد وكوبي هي مسج بدن ولا إيصو دري إيو إيميلو إيو كومنتيال لنا يوتيوب كي فيسبوك الله بدا بقى dhalinyaro badanaa waxay iga soo codsadeen inaan maaragtay kasoo hadlo talada guud oo aan sii lahaa qof maantay ku cusub Mareykanka ama Canada ama se hore usii joogay oo raba inuu iskuul bilaabo oo from scratch ka bilaabo maahan dadka shahaadooyinka iyo haystay oo wax raba inay bedelaan laakiin waa qofka raba bahasha dhanba inuu maanta bilaabo oo iskuul raba inuu bilaabo iyo meesha uu rabo inuu ay tahay inuu ka bilaabo macnaha arrintaas inaan maaragtay talooyin guud ka soo bixiyo layga soo codsaday marka videogan arrintaas ku saabsan yahay horta waxaa maaragtay wax walba ay ku xiran yihiin luqadda ingiriiska iyo meesha ay joogto hadday siira tahay ama se communicationkaagu uu maaragtay uusan meeshii la rabay oo college iyo jaamacadii lagu aadi lahaa uusan gaarsiisnayn ama xataa high school diploma lagu obtain garay lahaa number one waxay tahay inaad qaado waa luqadda ingiriiska inaad barato luqadda ingiriisigu markii wadamadan westiga la joogo waa number one haddii aadan luqadda ingiriisiga aqoon oo aadan skillskaaga luqadda ingiriisku aysa fiicnayn way kugu adkaa doontaa inaad any college waa geli kartaa oo waa isku soo aadaadsan kartaa laakiin inaad succeed garaydo shahaadadii aad rabta aad ka qaadato oo programkii aad rabta aad si successful u dhammaydo aaday kugu adkaanayda sababtoo ah luqadda dhan oo wuxuu ay ku baxayaan waa luqadda ingiriisiga aasay qor haddii lagu yiraahdo report haddii lagu yiraahdo qor waxyaalahaas oo dhan report aasay paragraph iyo research soo samee reference usoo yeel waa wax walba waa heavily dependent on luqadda ingiriisiga marka haddii aad xoogaa meel fiican ay kuu joogto iyo haddii aad bilow tahay labadaba waa inaad number one stepka koowaad aad qaadida waa inuu yahay luqadda ingiriisiga inaad iska dhisto saa la isaga dhisaa marka gobolada kala duwan iyo meesha aad joogto inta badan hadda adduunka ESL wax la yiraahdaa jirta English as second language ESL loo yaqaanaa waxaad raadinaysaa oo research ku samaynaysaa gobolka aad joogto iskoolaadka ESL-ka oo luqadda ingiriisiga bixiya iskoolaadkaas qaarkood waa in lacag iska bixido qaarkoodna waa free oo provincial government ama maaragtay dowladda maamul goboleedkaas maaragtay bixiya ama se waa oo free oo ka bixiya ama waa iibsanayso oo lacag laga rabaa marka inta aan hadda ka warqabo gobolka Alberta kale inta badan maaragtay waa lacag college-kii laftiisa aad skillska ka baran lahayd ku dhahay anaga ka dhisayna 4 maado 3 maado ESL-ka markaad heerka soo gaarto umbaad waxaad maaragtay shahaado ku sii haynaa markaasaad programkaad rabta gela waana arrin iyada lafteedu fiican haddiiba college-kii aad rabta inaad gasho mustaqbalka ay ku yiraahdaan intaana koorso qaado luqadda ingiriisiga sidaan u baro kadibna shahaadan ku sii haynaa kadibna programkaad rabta lagu ogolaa way fiican tahay iyada lafteedu gobolkan Ontario haddaan aan joogo aan idin kala hadlayo waa free ESL intaasoo iskuula bixida adult high school kuwa aha bixiya kuwa aan xataa adult high school ahayn oo ingiriisi kaliya laga bixiya jirta meelo community oo lagu bartaa jirta marka goboladu way kala duwan yihiin laakiin gobol kasta iyo meel kasta oo aad joogtaba maaragtay waxaa raadidaa luqadda ingiriisiga meel lagu barto waxaan dhihi karnaa dadku isku maaragtay isku faham maahan haddana qaara qofaa shaqeeya iskuulna raba inuu dhigto laakiin waxaan dhihi karnaa qofkii xoog geliya oo ugu yaraan maalintii 4-5 saacadood geliya hal sano wuu ku baran karaa luqadda ingiriisiga wuu ku baran karaa waxaa ula jeedaa waad ku awoodi doontaa inaad college iyo jaamacad iyo waxaad rabta ku aado ilaa mar walba waa sii baran doontaa oo xataa college ka gasho taas waa number one stepka koowaad inaad luqadda ingiriisiga iska dhisto number 2 waa inaad heshaa information saxa haddii aadan haysan waxaa kugu dhacayda in intaasoo program bedesho inaad ku wareerto inaad midad u maleeyid inuu fiican yahay kula fiicnaa waayo inaad madaxa kugu soo xanuuno in lacag deyna lagugu soo yeesho inaad daroob garaydo sababtoo maaragtay bahar garaamkanaad soo gasho maadan aqooniyo waxa uu yahay iyo waxa uu qabto marka waa inaad research samayda information saxa waa inaad samayda informationkaas loo hela informationkaas waxa ugu fiican oo laga heli karaa waa inaad network samaysato dad waxaan hore u bartay tusaale ahaan haddaad rabto inaad nursing barato waa inaad raadidaa horta yaa nursing bartay yaad ka taqaanaa asxaab ma jirtaa qof adigu aad taqaan qof uu sii yaqaanaa ma jirtaa community-yada meelaha oo career optionka iyo looga hadlo workshop-yada lagu sameeyo oo presentation-mada lagu sameeyo waxyaalahaas waa inaad ka qayb gashaa oo aad raadidaa xogta intaad raadi karta waa inaad xog raadidaa xog oo dhan muhiim maahan xog saxa waa inaad heshaa marka
programka aad rabto inuu qabto tusaale ahaan hadda oo kale electrical engineering aa lagu yidhi electrical engineering waxa uu qabto haddaadan aqoon laakiin aad maaragta waa fiicantaha layska kayrood iska gasho inaad ku wareertaa laga yaaba nursing oo kale haddaadan aqoon maaragtay duuriska iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo license procedureka iyo waxaas inta hawla mara haddaan lagaaga sheekayn oo aada fahansanayn waxaa laga yaaba inaad iska soo daroobgareedo marka midda labaad waa information qodobka saddexaad waa commitment af soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa go-aan inaad waxaan inay kaa go-an tahay oo tiraahdo 3 sano soo socota 4 sano soo socota 5 sano soo socota waxay rabto ha igu qaadato waqtigay rabto ha igu qaadato aduu waxun commitment ina la timaado programka inaan wax bartaan rabaa waxaas iyo waxaas A iyo B iyo C inaan bartaan rabaa waa commitment marka waxa waaye wax kastoo kugu adkaada ilaa committed u taho inaad kaa go-anta inaad baratay waad sii waday waad sii riixay caqabadaha imaanaya waa drop garay mid kale aad ku bedelay macnaha waa commitment marka saddexdaa qodob haddaad la timaado stage kastoo lifeka aad ka joogto iyo age kastoo aad tahay weliba maaragta dadka maaragta qaangaarka oo 20 21 23 ilaa 30 iyo dadka jira waa maaragta dadku meeshay waxbarashada markay noqoto ugu firfircoon yihiin sababtoo ah maaragtay teenage maahidoo cayaar iyo maalaa yacni ku dhaafi maayaan wixii aad rabtay inaad barato qof oo dhahaya maaragtay xoogaa hadda waa mashquulkayga maskaxdaydu maba qaba karto waa duqooba dhahayana ma tihid marka meeshaas ageskaas waa dadka ugu maaragtay ugu muhiimsan oo dad badan u maleeya oo haddaan mar 20gii soo dhaafo waxbarashadii waa ka gabooba ma ahan 20 markaad ka yartaa inta badan inaad ka boodboodo aad maaragtay maalinla aado maalin iska daydayba u badan tahay marka taasuna waa sidaas age kastoo aad joogto iyo stage kastoo lifeka aad ka joogto saddexdaas shay haddaad la timaado waddan kastoo aad joogto waxaad ka baran kartaa hadda videoganan wuxuu ku saabsanaa dadka oo Maraykanka iyo Canada inta badan wax ka barta labadaas waddan waxbarashadoodu waa same way isku xirxirantahay way aada isugu dhowdahay oo xog badana labadoodaba ka hayaa marka intaasaan videoga idinkugu soo koobayaa saddexdaas shay ayaad u baahan tahay waa luqadda ingiriiskood iska dhisto information saxa oo aad raadido waxa aad rabto inaad barato oo aad information saxa ka hesho inta aadan bilaabin iyo commitment inaad la timaado ama go-aan inaad go-aansato kaa go-aan tahay waxaan inaad barato saddexdaas shay haddaad hesho horena u soconaysaa program kasta iyo wax kastoo aad rabto inaad baratana waa ka miro dhalanaysaa guulaadka keenayda halkaasaan videoga noogu soo gabangabeynayaa insha allah barnaamijyadii inta badan waxay ka soco doonaan youtube-ka halkaasaad kala soco doontiin salaamullahi calaykum